no. سؤال شاذ جوابتي برادة واخد أنا بكسب أنا بكسب ممكن لما Soomaali ahay mid ka saas ku daba suusaas ku daba taagan yahay aniga marka sariir ma xamee ka sanad ma soo gadi karo wali maani ahlan ma jabaysa hadee war waa jabay ma dirana gada balbalaarka waay mid ahlan kulliina waa isqoon bitaas ma waraabo birbir ku soo waay taas ma waraabo sida ugu jab ha أبو علي أنا قلت ما دام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سولو هذا أصحابته أصحابي لنعي بديه حافظيو ولا لك يسكي ولا شيء أفنيتا من أنيو أفرحان سيدو كلي ولا لك قلبي يكاميرمانكا أو كينكي باشي كاميرمانك وقش يدن كمبالا أصحابي ما أنتو حادي هنا challenge جاس وحكو شابسين ياهاي بقتي ونصيب قف والبو نصيب بيسو تجابنايا وقضاها ماشي روبرني ميد والبو حاكو قرن مقع أما اللمبر حاكو قرن لمبر كاس مركا قفك اوقاتو انتا مركا وحاكو جيران سواشي لويدين هاي جواب تيدا اي سواشي انتي بقوريهين سو مركا عسيقا لمبر بيسو هايستا لمبر انتي بقوريهاي وحاكو حسن انتي بقوريهين سو قف كاس وحي لويديو أما سواشي لويديو وكجوابايا نلا صعبة سكيو برادر مركب ورقة قبص أذيقة نسيبك أنا تجابي. أوكي نسيبك تجابينا يا نسيبك أنا تجابينا يا. وحاي صوب حي لمبر أفر. لمبر أفر وحاوي هرتا وحاضر لقاربة إن كله قيسو هيسها خضر كيو هيس كميدا. أما الله بقى كشيء. خضر كيو. ها. خضر كيو وفنان تقرأنا عنه. صفيان. كستو كيو صفيان أوهينين. هلايس والله نمو نمدي وانا اجو اني ودنو حاطو No. ساس بوكسو جوبي اوكي جود مسكه تجاب markaan waxa way anaga dadka iyo noloshan adigana waxa la rabaa inaad tijaabiso nasiibkaaga أوكي نسيبك ما تجابي بسم الله حقيقة صباح دانا هاي قشن دنا لوك شيء شيك بقى لمبر تري يا صباح لمبر تري waxa ku xusan فنان عان inaad heesiisa laba kamid sheegto waxaana waaye fanaanki maxamed biibshe laba eray oo saddex eray okay fanaankaasi aad baan u taageersanahay waxa leeyahay heesihiisa waxa kamid gariiraya aniga sama ma aqaan fanaanka gariiraya ma loo gariiray واتهاي واحد تري جريري هيستي سانكا سكسو جريري سويدي أصحابي مركان دن كان يحاول عليا سعيد كي LB برادر وكخبصو نمبر كان ديك سؤال وا لمبر أخيرية نمبر شن واي معكوسة لمبر شن وحاكو حسن إلا تكون قيسو هي سها فلدقن وقاضي هيس كميدا سيسة أتكلم من نمبر شنكو كفصل هلا بدأ سودي فلدقن كعب واتاي صاحبي هاتنا waxaan ka baxnay dhankaas fanaaniinta waxaan u gudbeynaa YouTuberiska gabdhaha YouTuberiska ay u gudbeynaa asxaabina la socda sikriye soo bilow waxaa laga rabaa adina la barqabsatid nasiibka ku tijaabisid nasiibka ku tijaabina كوي تانا يصبحي كوي تمنا كوصبحي وحال غربا وحاجرو gabar leeyahay youtuber oo jiya make up artist waxaan rabaa gabadhaas ina ammaan kala dubdhacay adigoon tilmaamaynin waxay tahay iyo wax shaqada ay qabato inaad amaanto jiya ma sha Allah jiya horta waxa waa gabadh style leh ma sha Allah waxa waa Kenya naagta waxa gabadha ugu style ka badan waay waxaan rajeynayaa horumar wacan jiya baby okay يا بيب وحاتر قبل دوش سالك بدن أنا لا يستل بدنيا ما كاس مرة وش يعني ما أصحابي يا كاس وجودنا إمين كان هذيك نسيب كاي تجاري أنا ما لي سوي هاي قشيني قبل شوي ما جيس ثاني
number 7 ay soo baxay lambar 7 ha waxaa waaye ilaahu ka inaad jafto oo maryaha ka dhigto waxaa laga rabaa hibo falaq haddaad taqaanin horta ma aqaanin falo laakiinse anaa kuu sheegaya falaq hibo falaq waa gabadhii kufsatay wiilkeeda habeerta waheed nidaamiyi inta soo qabatay ka saartay miya fanaanadaas waaye inaad jiftiyaa aniga wallahi ma aqaanin youtuberadna way tahay fanaanada way tahay hada ma aqaanin gabadhaas waxuu kana sheegay wax ka sheego dambiyaa ku leeyahay ilaa kuwa salaamaya okay anaga intaa ka salaamayna saaxiibka LB waxaa kaa raba nasiibkaaga inaad tijaabisid warqad qabsatid no. khafiifa ku maro lambar 2 waxaa ku xusan waxaa ku soo wacday maamo Franco waxay ku tiri habeenada iska jiftay ku soo wacday waxay ku tiri saaxiibow waa ku jeclahay maalinta YouTube ku arkay ilaa hadda ku jeclahay maxaa dhihi lahayd maamada jawaabtu maxay noqon lahayd mamaya mise ha horta sidaas marka laga hadlo maamad anaa lixsan ليسنا كنا marka dee waa qof koro oo maasha Allah waxaa waa mudda nasiibkeeda waa soo wacday yurubna ku geeyey yurubna geena maxaa asxaabay haatanna waxaa usoo laabanaynaa walaalkeen Sakriye warqadihii weli waxaa dhiman 3 warqadood waxaa laga bayan Sakriye hal warqad kamid qaadatay 3 waa markii afraad may kan wuu baxay warqadaa way baxday 3 warqadood dhiman hal warqad kamid la bax okay nasiibkii tijaabinaya waxa ay soo baxay number 8 asxaabay number 8 qabsaday waxaa laga rabaa waxaa ku xusan in aad sheegto gabadha ugu shidan ugu istaalka badan ugu kala kacsan ee YouTube-ka Soomaalida YouTuberiska Soomaalida gabadha ugu shidan la sheegtay gabadha ugu shidan no su-aashaas jawaabteeda baraada waa khalad أنا واقفة asxaabay gabadhaas intaa ka salaameynaa intaa uga mahad celineynaa anaga ra'yigeena waaye ma ahan inaan taageerno gabdhaha youtuberiska ee Soomaalida ma ahan inaan micnaha anaga aan necebnahay gabdhaha Soomaalida youtuberiska laakiin qof walba wuxuu yahay inaan sheegno intaa u fadhinaa gabadhaas gabar kale ma ahan waxay ku nooshahay dalka India waxaa la yiraahdaa Raaqiya Xuseen cidii ka xun iyo cidii adiga mid taageerto taas waa mid adiga anaga ma taageerno jawaabta meesha su'aasha ku weydiin jawaabteeda meesha ku qoran waaye safiyan laakiin shaadi sharaf ma taageerana aniga shaadi sharaf taas u saaraa waxaa ku weydiinaa Sakriye su'aal waxaa tiri maxaa la yiraahdaa shaadi sharaf wayga aad u siisay inkastoo ay jiraan gabdho badan oo youtuberis ah wayga aad u siisay noo sheegi kartaa style iyo waxaas horta style ma siinin youtube-ka ugu shidanaan siiyey waxaan u siiyey ilaahay kuma no horta falaqlaba qiyaasan tahay safiyan tahay matoorna saaran qaraha dambe dadkana waa qasbisiisaa sax wallahi marka saa youtube u galo iyada waxaan na fiirsado fankana way kufsatay fanka dhankayga kufsatay fanka waxay kula kufsatay ala kulli xaal maanta aniga iyo faladiga ayada iyo faladiga ismeel taagan yihiin waa tahay asxaabay haatan laba warqadood soo hartay labada warqadood midna waxaa iskala saaxiibkay midna waxaa iskala walaashay marka waxaa la rabaa hal warqad inaad qabsatid sida ku tijaabi number 9 lambar 9 ay qabsata asxaabaysa ujeedin halkaana lambar 9 waxaa ugu xusan in ay laba eray ka tiraahdo laba gabdhood oo youtuber ah oo la yiraahdo asal dalad iyo gabadha kale tan magaceeda waxa la yiraahdaa no balaarka kaas ma ana asal dalad iyo axlaam la dhahaa kala dhahaa waxa laga rabaa labadaas gabdhood inaad laba eray youtuber u shidan maya waa la shidan yahay waa laga wataa micnaha waxa laga rabaa inaad laba eray ka tiraahdo oo jafo جفو
كان فوق ما في يعني ما يوصل aniga jafoobka ma fiican runtaan raadii sheeg labada horta aniga midaan jafila xaala iga kaadanaya midaan sadooda bahay taas midaaye inkastoo ay hadda tiri ma jafay wax aniga ma jifaay gabar jafas xagal baarkaan gabar wax jafay ma jirabe ma qabat jafay arkay waa tahay way jafi did laakiin anaga jafeeno aniga gabadha horta asabada way yarba aciil qaba qoftaas waxa waaye ayaan hore Instagram-ka message uga diray safiya way waadkaysi ku dhig way waadkaysi waxa waaye laakiin meeshaan aan ka baxa anigu waxa waaye horta balbalaarka oo loo ku rabay laakiin faasata wax kuna balbalaarka midda kale sariirku deeqda heli ma midda saddexaad waxa waaye nimankii dhamaa oo Soomaalida ahay mid ka saas ku daba taagan yahay aniga marka sariir ma habeen ka sana sariir ma soo gadi karo walaalay macaanay ma jabaysa hadee war waa jabay ma guriga noqeba balbalaarka waay mid ahlaan kaliya horta waa iskoob taas ma waro birbir ku fawaa taas ma waro jeeda ugu jabto ka gudub waa salaamina kaftanka uu ka dhaxeeyo YouTube riska loo qaadanin ina anaga aad ataageeno adeer adaa soo haray warqadii ugu dambeysay aad u nasiibsan laakiin sheeg halkii warqad ugu dambeysay waa tan fiirso maxaa ku qorsan number 8 lambar 8 Soomahan waxaa laga rabaa inaad sheegtid gabdhaha YouTuberiska halka gabar uu abuursan lahayd haddii maanta lagu soo wado safar gadigood oo lagu dhaw midee buursan lahayd الله سي لما تفعل شيء ما جامس كان لا وش هي سيدي انا حاسين هاي كتبنا ها يا سيدي أبو علي أنا ما دام guud ahaan asxaabay intaas waxaa inooga eg challenge-gii xisaab badnaa ee idin soo diyaarinay asxaabay waxaan idinka codsanaynaa haddaad nagu cusub tahayna soo dhaweey haddaad kugu cusubnahay soo dhawow channelkana subscribe ka ilaabin videoga like karee commentiga hoos inoogu reeb siina share garee waadna ku mahadsantahay daawashada videogan sidoo kale halkan waxaan ugu mahadcelinaynaa cameramankeena behind the scenes taagan King Bashi waxaa leenahay asxaabay idinkana commenti waxa ugu soo qortay maasani maadaam video quruxda baraasi uu duubay waliba anagoo dhalinta Kampala waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo